Asalaamu calaykum akhayrta soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa bilaabeynaa XD sida aad u jeedaan calaamada loogada XD soo dhawaada marka muuqaalkeena maanta. Okay, muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay macnaha sida loo furto markaa soo double click soo dhaha saa is furto qaybta webka anaga hadda dooranaynaa si aan u sharaxno waxyaalaha ku jiro. Laakiin inta halkaas ka saxan reseptigan meeshaan ku qoran waxa waaye waa fahmi kartaan oo malaynaa casharada ama waxyaalihii aad samaysay dukumentiyadii hore u abuurtay waaye. Laakiin haddii aadan hore dukumentiyo u abuurin ama website ama wax aadan u sameynin macnaha ma noqon kartid meeshas wax ma ka arkaysid macnaha meel goorfa u tegay. Okay, intaan gelaynaa maadaama inaan sharax rabno. Okay, qaybtan waxaa la lahaa marka kii la joogo waxaa loo yaqaanaa direction tool marka la joogo sidaad u jeedaan inta Adobe Illustrator kaas direction tool ayaa loo yaqaanaa laakiin kan select ayaa loo yaqaanaa. Okay, waxba ku dooranaysa isku mid waa dabcan. Okay, hadda markaa si aan u baro in wax lagu dooran karo. Okay, ayadaa noo taabsan buluug noo ah marka midka buluug active ama shaqeynayo. Okay, ayadaa buluug siinaya wax dhan buluug ay noqonaya marka waa kaasa direction toolka sidaas waaye. Direction toolka kan macnaha wuxuu ku fiican yahay Adobe XD-ga wuu ka fudud yahay maxaa la dhahaa Illustrator marka la dhaho wuu ka fudud yahay dhammaan horta wuu ka fudud yahay intaan le waa badanka intaanu ku imaadaa intaana la adeegsadaa halaasaaba kaa badanba wax kale ma u baahnid marka aad rabtid inaad designka website-ka ama is very easy waxyaaluhu ku fiican yahay waa masha Allah intaa waa ma badna waa sidan iyo waxyaalo kale oo yariis ah ka bedbedelaysa hoos imaanayaan oo keliya wax kale saas si adag maaha marka intaana ugu muhiimsan meesha taalo. Okay, hadda aan sameyno direction toolka waa midka ugu isticmaalka badan ama selectiga waa midka ugu isticmaalka badan marka la isticmaalayo Adobe XD. Okay, hadda kalarkaan bedelaynaa kalarkan hadda ogaan doonaa meel laga bedelo inkastoo hadda aad u jeedin laakiin dib aad ka ogaan doonaa direction toolkan waxyaalo badan buu qabtaa marka la joogo inta marka sirka rectangle-kan aad sameyso intuu kaaga soo qulci karaa intaad doorato waxaa leedahay wax dhan soo wada quluci macnaha saas aad dhihi kartaa meelaha oo waxaa loogu talagalay saan waxaa loo adeegsadaa meelaha oo kiliga ah meelaha in la kiliga laga rabo oo saan u eg badanka aa loo adeegsadaa. Okay, aan sii soo ku celino afar geesta ahay. Okay, waxaa rabtaa oo keliya hal dhinac inaad sameyso markaa rabtane waxaad adeegsanaysaa mid kale oo gooni ah. Okay, mid kale oo gooni ah adeegsanaysaa oo saas inaad dhahdo oo click siiso oo kadib kilig baa la sii jiray kiligna saas la dhihi jiray kan kii dambe waaye. Okay, kan kii dambe waaye saa malaynayo saasuu ku diidayaa marka kiliga la siinaya saas dhinacyada lagu kala jebi jiray. Okay, marka hadda dhinacaas may astaghfirullah غير إيران نقطة مكعربت إن معاك جبت مشان التجيسي مشان التجيسي دي بقى كبردنا إن شاء الله كثير ماذا. Okay, أنت ساكسمينا direct select أما direct tool كاستعمالنا هدي أدوية Illustrator هو أرتي كيف هو وفوز هاي select يلو يقانا direction tool كمشي لو يقون جري مركا وايد سلامي عشان كلامنا برنا إن شاء الله.